Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Waa janaalka Idris Mother. Kusoo dhawaada casharkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo bedelo Windows 8 kaaga passwordkiisa haddii aa ilowdid ama recovery loogu sameeyo ama resetting password sida u bedeli lahayd adigoon isticmaalayn wax software hadeertaan computerkan ayaa isticmaalaya computerkan aan rabaa hadda passwordkiisa in la bedelo Windows 8 ama 8.1 oo window ayaa waxaa ku duubanayna flash ama CD bootable ayaa kasoo dhigayna bootable markaa kasoo dhigana waxaa gelinayna computerka markii la geliyo kadib oo kugu jiro diyaar yahay restart ayaa u diraysa computerkaaga restart markaa u dirtid waxyaabaha sameyn doonada si toos ah u raacdi insha Allah way ku fududaane restart markaa u dirtid waxaa u baahan computerka intuu soo kicin inaa taaban xaraf oo computerka bootka ku aadayo si toos ah bootkaaga F12 ama F2 ama F10 waxaa kusoo galay sida kusoo galay CD ama flash wuxuu yahay ayaa dooranaysa ani CD isticmaalaya CD ga markaas waxaa ku dhufanaysaa intuusan dhamaan dot click any key taabane window-gaaga wuxuu kusoo kacayaa hadda iyo kow sida hadda adigoo window-ga bedelayo next yaa leedahay markuu soo kaco kabacdi waxaa imaanaynaa repair your computer troubleshooting ayaa imaanaynaa troubleshooting markaa imaano advanced option markaa ku dhufan kabacdi waxaa ku dhufanaynaa common prompt markaa ku dhufana waxaa rabnaa inaan bedelno file oo util oo inaan ku bedelno filekaas si fudud inaan u isticmaali karno cmd da ugu dhigno waxyaabo kale asagoo loo adeegsado marka meeshan code yar ayaa inaan qoraa codekaas waxaa filayaa in la fahmi doono cd ereyga cd marka common prompt la joogo waa la yaqaanaa sida open oo kale waaye marka inaa meel inaa gashi rabtid c iyo laba dhibcood kaligeedana waa inaa markaa gashid drive inaa gashid markaa u baahan tahay windows aa galay windows markaa galay kadib waxaa galaya system.2 kadib markaa galno waxaa bedelaynaa magaca utilman oo lasoo gaabiya ultimate manager magaca ka bedelaynaa waxaa u bixinaynaa utilman markaa bedelno waxaa ku biyanaynaa cmd da ayaa waxaa bedelaynaa utilman meesha util laga isticmaali lahaa waxaa isticmaalaynaa cmd da kabacdi waa iska xiraynaa kabacdi markaa dhahdo computerkaaga dami computerka markaa damisid hadda window-gaaga caadi ah usoo kaco markaan waxba bootkaa kasoo kicin meeshii easy access meeshii ahayd ayaa waxaa u bedelna iconka yar ku dhufo iconkana cmd da noo hayo laba qaab ayaa hadeertaan loo bedeli karaa passwordkaaga adigoo isticmaalaya control user password is 2 adigoo si easy kan u isticmaali karo stepkan markaa sameysid waxaa bedeleysaa userkaaga dooranay userka markaa dooratid reset password aa leedahay password cusub aa geline password cusub kana gashanaysaa oo adiga aad taqaanid aadan iloobeyn passwordada markaa gelisid kadib haddana waxaa ku dhaafi kartaa adigoo password dhan gelinin okay waa dhigi kartaa password la-aan okay mar labaad deh hadda bahalkaaga okay waaye qaabka labaadna waxaa sameyn kartaa waxaa soo galaynaa net user markaa ku dhufatid userka administrator waxaa jiro guest iyo itechkaas rabnaa inaa password u sameyno net user itech password markaa dhahdid net user meeshaan net user markaa dhahdid itech waa magaca uu qaadan doono bahalka password haddaa raacsiisidna ama waxa aa raacsiisidna waxay noqon doonaan passwordkaaga saxda ah exit markaa exit kabacdi waxaa kusoo galaynaa passwordka aa u bixina oo ahay password waxaa rabtid oo ku qoran kartaa welcome
kabacdi waxaan sameyneynaa waxaa soo bedeleyna waxyaabihii aan soo bedelnay ayaa hadda waxaa rabaa inaan bedelo oo aan ka dhigo sidii ay ahaayeen. Sidaa soo gal, hadday sidaa galna kabacdi Windows, kabacdi System32 markaad soo gashid waxaa raadineynaa filekii utilman aan sameyneynaa ayaa waxaa rabnaa inaan deleedno utilman oo cmd ahaan u isticmaaleyna kan markaad tiro waxaa loo baahan yahay marka in oo utilkii saxda ahay oo kusoo celiyo siduu ahay. rename hadaa dhaho magaca aad tiro oo intro dhaho wuxuu i weydiin doonaa permissionkaas oo ah aniga awood uma lihid hadda computerka soo galay inaan wax bedelo. Marka properties taga si permissionkiisa aan usoo bedelo security sii tag, security kabacdi advanced tag, advanced kabacdi owner meeshaan change password tag, change permission change sii tag, qor filekaaga haddii uu jiro, userkaaga qor, click okay, check your name marka magacaaga geshid apply okay. Waxaa imaaneysaa userkaaga imaanaya, userka markaa imaato waxaa leedahay edit, permissionkaana siineyna allow okay, apply okay. Hadda waa bedeli karnaa marka magaca bedel oo ka tirtiri wixii hore u raacana ka tirtirina okay. Ma hubtaa inaad bedeleysid okay. Hadda haddii aan fiirino meeshii ay ku qorneyd sign out, meeshii ku qorneyd easy access hadda fiirino si toos ah ayuu noo soo gelinayaa isagoona lahayn cmd.